ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام geesinimo caqliyeed iyo mid qalbiyeed ba uu lahaa ama si kale haddaanu nidhaahno geesinimo macnawi iyo mid xisiya ama si kale haddaanu si idhaahdo weliba waxaa laga yaabaa innagu xogaagan gaalada halkan jooga inaynu dacwo u fidinno oo raganimo kala hortagna daaye in badan oo inaga mid inay salaadana xataa kala dhuumato istiraahdo yaan lagu arkin adigoo tukanaya laakiin nebi maxamed waxaad qiyaastaa isagoo keligiiya oo dunidoo dhan keligii ka hor yimi qof qudhoo dunidoo dhan waajahaya qiyaas waan cidiba la socon xaafadda ciddii joogtay rumaysay dabeetana bulsho dhan oo mabaadi' kala haysata oo diimo kala haysata oo wax kala haysata waajahayoo leh waa qaldantiin waxaana caabudaysaanna khayr kuma jiro ilaahay keligii caabuda leh quluu laa ilaaha illa allah tuflixuu waa geesinimo inaad waajahdo adduunka keligaa geesinimo ka weyn maa jirta qof keligii mabda'isa adduunka ku waajahaya oo ku darirsano kala hor yimi oo dhib oo dhammi ku soo gaadhay oo wasaa'isha bini aadamka lagu halleeyo oo dhan laysku daya in lagu halleeyo aliqraa xoolaannu ku siinaynaa madax baannu kaa dhigaynaa kan baannu kaa yeelaynaa waxan baannu kuu samaynaynaa maruu rabshadda naga jooji la leeyahay shajaacadiisa xisigaana taasi waa jur'adiisu ku lahaa iyo suu geesi ugu ahaa mabaadi'diisa wuxuu kaloo geesi ku ahaa caliy bn abi aalib baa wuxuu leeyahay kunnaa idaa xamiya alba'su waxmarat alxadaqu اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه هدي دقالكو واتكادا بوليه دقالكو دررتو مركا كولولاتو نبي قانو كوغا بنشر نيبويري أنك وحنا نوغو سناؤون كالنبي حقي سوغو حيقا وهي نبي حق دقالك عدو نوغو حيقا يبوليه أنا سباو حليه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة نبي حابو لي دتك كيو أو رقم في عن أو جيسسن مالي باقيلا يا دي مقالة مدينة بويري دبتنا دتكي ويصابحه ماشي قيلادو كي يدي علبة لموديا ومل دقالو تاغن مدينة قالا انت ويرر كوهيسا marka qayladii yeedhaba waxa la isleeyahay hadda cadawgii soo galay dabeetana dadkii markii ay soo baxeen ayuu nabigu ka hor yimi calayhi salaatu wasalaam abi talxa saxaabi la yidhaha faras uu leeyahay oo leeda ah oo aan waxba saarayn intuu xadhiga ka furay ayuu intaan dadba soo bixin buu nabigu baxay calayhi salaatu wasalaam dadku markay soo baxeen isagoo meeshii ka soo noqday buu yimi oo leh lam turaacu isagoo leh waxba cabsanina dhibi ma jirto nabi maxamed baa dadka ka horeeyo intuu goobtii baladu ka yeedhay ama qayladu ka yeedhay tegey ka soo noqday oo saxaabadiisii ku leh ee dhibi ma jirto leh lam turaacu xadiiska bukhaari ku yaala ay laa takhaafu walaa tafzacu buu leeyahay waxba ha cabsanina xasila markaynu eegno nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii oo dhan baa tilmaamaysa goob dagaal siduu u joogay halkan seefuu kaga dhacayeen ee dhabanada koofiyadu ka gashay ee ilkaha badh laga dumiyey ee haddana u taagna bale saxaabadu albaraa ibnu caazib baa wuxuu leeyahay niman taabiciina waxay ku yidhaahdeen war ma nebigaa ka cararteen taabiciintu dee dagaaladii saxaabada iyo wixii mushkilad qabsatay may soo gaadhin qofkuna waxa aan soo gaadhin inta badan wuxuu is yidhahdaa wallahi haddaad joogi lahayd nin ragaad noqon lahayd laakiin saxaabo rag dhaamaa ma joogin meesha hase yeeshee taariikhdu dee waxay warinaysaa marar la jebiyey saxaabada dabeetana intay baraa ibnu caazib saxaabi la yidhahdo u yimaadeen oo ka mid a saxaabada raggii ugu geesisanaa buu ka mid yahay futuuxaadka islaamiga waa raggii hogaaminayey ee goobta halkay ka galaan magac iyo maamuska ku lahaa ayay u yimaadeen waxay yidhaahdeen akuntum wallitum yowma xunayn ya aba camaara maalintii xunayn ma nebiga ka yaacdeen bay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay inaanu nebi maxamed cararin ee dadka
qaar iska fudud iyo waxaan hub haysan iyo waxbaba inta iska dhinac galeen tiro badan ayay reer Hawaasan meel u galeen niman gamuunka gaba yaqaana way haayeen adigu waa ciidan iminka meel galay oo madaafiic lagu adqaysiiyey waa madfaci waagaas oo hadee gamuunka la ganayay dabeetana iyagoo aan iska dhaadayn baa gamuun mar qura sida roobka lagaga dhigay dadkii way yaaceen nabigu calayhi salaatu wasalaam marka horeba baqal buu fuushanaa dee baqalina ma dheeraysaba yani kuma talagelin inuu cararaba muu jeesanine xaggii ciidanku u sii kacay weliba isagoo aan isqarinaynoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib isagoo leh anigu nebi baan ahay beenna sheegi maayo beenna maaha warkaasi waxaan ahay ina cabdilmutalib isagoo leh nebigu calayhi salaatu wasalaam awowgii sheeganaya ayuu ka hor yimay ciidamadii yani waxay tilmaamaysaa dadkuna wuu sii yaacaya isaguna xagga cadowgu u socdaa weliba isma qarinayee kor buu hadlayaa isagoo sheeganaya inuu nebigii ilaahay yahay subxaana wa tacaala oo ina cabdilmutalib inuu yahay isagoo tilmaamaya dabeetana baraa baa wuxuu leeyahy kunna wallahi ida axmara alba'su nataqi bihi dagaalku hadduu adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu yidhi ninka nebiga ugu dhow xadiidka kale bukhaara warinaya idan ayaa laxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam goob dagaal marka la joogana geesi buu ahaa aan fulaynimada aqoon bal siduu u qalbi adkaaya geesinimada u ahaa qalbi adayga waxaan uga jeedaa saan cabsi u gelaynin waxaa garanaysaa xadiidkii bukhaari iyadoo dagaal laga soo noqday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam geed u harhsanayo ayuu nin reer miyii soo galay ciidanka soo dhex maro intuu qaatay seeftii nebigu halkan suran intuu galka kala baxay ayuu isla dul taagay nebigu uu leeyahay man yamnacni minka waa nebi maxamed oo keligii geed jiifo saxaabadu markii hore geedka u banneeyeen oo is idhaahdeen geedka har kale nebigu ha jiifsado oo seeftiisiina ay ninka kale gacantiisa ku jirto oo nebiguna jiifo kana taagan yahay waa wadci qofku uu argagixi lahaa haddaad meel cidlaa lagaa helo oo seeftaadina ay ninka kale gacantiisa ku jirto oo uu kula dul taagan yahay oon raggii ku difaaci lahaana agtaada joogin adna aanad waxba haysanin oo uu leeyahay weliba man yamnacni minka yaa iga kaa dhicinaya oo nebiguna leeyahay allah kalsooni uu rabbigii ku qabo ilaahay baa iga kaa dhicinaya yani waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu isugu kalsoonaa iyo inaan cabsida aanu aqoonin xataa iyadoo uu wadcigaa ku jiro uu fadhiyo ama se jiifo oo seeftiisii lala dul taagan yahay wadciga caynkaasi xataa inaanu digigaxanaynin ama se aanu cabsiyi ku jirin kadibna ninkiibaa seefta ku celiyey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba kuma samaynin waa iska cafiyey